sidii caadada inoo ahayd shirkad ahaan waxaan si joogto ah u abaal marinaa oo hadiyada ay ku farxaan aanu ku celinaa macaamiisheeda qiimaha badan ee naga isticmaala adeegyada kala duwan maanta waxaan halkan ku abaal marinaynaa macaamiisha inaga isticmaala internetka gaar ahaan ku isticmaala mobilkooda 4G-ga 3G-ga iyo 2G-ga iyo sidoo kale macaamiisha naga isticmaala adeega aqoon maal sidaad nooga barateen barnaamijyada aanu ku bixino hadiyadahaas waxa kamid ah barnaamijka hana hadiyadaada oo aanu si joogto ah u bixino marka maanta halkan waxaan ku siinaynaa macaamiisha mobilkooda ka isticmaala internetka hadiyada qaali ah oo ay kamid yihiin mobilada casriga ah ee ku shaqeeya adeega 4G-ga iyo Wi-Fi-yada ku shaqeeya 4G-ga 3G-ga iyo 2G-ga aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya macaamiisha ku guuleystay hadiyadahaas kala duwan insha Allah taala hadiyadani ma noqon doonto tii ugu dambeysay mana aha tii ugu horeysay halkaas ayaan ka sii wadi doonaa sanadkana barnaamijyo kale oo xiiso badan ayaan macaamiisha u furi doonaa insha Allah taala sidoo kale waxaan iyadana maaragtay xusi lahaa maanta macaamiisha halkan aan ku guddoonsiinayna hadiyaduhu ma aha macaamiisha Hargeysa oo kaliya waa dhammaan dalka oo dhan waxaan ku guddoonsiinaynaa halkan 96 macaamiil ayaan ku guddoonsiinay hadiyado kala duwan oo ku kala guuleystay labadaas adeeg barnaamijka hana hadiyadaada waxaan ugu tala galnay inay ka qayb qaataan oo ay hadiyadaha ku guuleystaan macaamiisha mobileskooda ka isticmaala internetka marka waxa shardi uun ah macaamilku inuu mobilkiisa internetka ka isticmaalo sidoo kale si uu uga qayb qaato abaalmarintan waa inuu numberka 31 u soo diraa ereyga abaalmarin macaamiisha aqoon maal iyagu waa inuu kunba shardi ah inuu kamid yahay macaamiisha isticmaasha adeega aqoon maal marka systemka ayaa si nasiib ah ugu soo saaray macaamiisha ku guuleysatay macaamiisha guuleystay waxaan leeyahay hambalyo insha Allah taala na hadiyadu halkaas bay nooga sii socon doonaan aad iyo aad u mahadsantiin waxaan maanta halkan ku abaal marinaynaa macaamiisha ku guuleystay barnaamijka hana hadiyadaada iyo adeega aqoon maal barnaamijka hadiyadaada waa qorshe nidaamsan oo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ka isticmaala internetka mobilkooda dhaatada macaamiishaas oo runtii ah macaamiil qiimo badan waxa kale oo isagana adeega aqoon maal waa adeeg dhalinyarada Soomaaliland loogu tala galay waxbarata siiba dugsiyada dhexe iyo kuwa sare barnaamijkaas oo laba barnaamij aad u qiimo badan ay ku jiraan oo la leeyahay iyo istijaabi shirkaddu had iyo jeer waxa ka go'an in macaamiisheeda u keento adeegyadii ugu dambeeyay iyadoo gooriyaan ku dadaalaysa la jaan qaadida iyo la socodka guud ahaan adduunka tiknoolajiyada u dambeysay waa shirkad tiknoolajiga ka ganacsata oo ku dadaasha macaamiisheeda qiimaha badan leh ku baasan guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan dhulka afka Soomaaliga laga hadlo inay u keento adeegyadii u dambeysay sad hore uga barateen waa shirkadii idin hirgelisay adeega aan baxay runtii laf dhabarta dalkan iyo dadkaba u ah adeega saad oo qiimo badan runtii wadankan ku leh waxa kale oo aan la iloobi karahayn in shirkadda Telesom ku dadaasho inay bulshada Soomaaliland ka caawiso dhanka arrimaha bulshada waa shirkad ka caawisa ummadda dhinaca waxbarashada caafimaadka kamida mashruucan ballaaran ee diabetiska oo runtii mashruuc qiimo badan oo dadka danyarta ay macaanka la nool lagu caawiyo waxa jira arrimihii bulshada iyo aafooyinka markay dhacaan sida abaaraha iyo maxayday duufaanadii wadanka ka dhaco kala qayb ka qaadata waa shirkad u heelan inay deegaanka badbaadiso iyadoo ka duuleysa inay ummadda maadaama xaalufka waxyaabaha keena dhibta ay kamid tahay deegaanka waxay u keentay shirkadda Samgas oo runtii qiimo badan wadankan ugu leh oo dhuxushii iyo dhirtii intaasoo milyan oo geedo sanadkii la gubi jiray ay u badbaadisay guud ahaan waxaan halkan uga mahadnaqayaa ku guuleystayaashii ku guuleystay laba barnaamijka hana hadiyadaada iyo adeega aqoon maal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waxaan celinayaa ilaahay alxamdulillah ilaahay mahadle waxaan kaloo mahad celinayaa dadka ku guuleystay abaalmarinaha waxaan kaloo si gaar ah u mahad celinayaa shirkadda Telesom waxaan ku guuleystay hadiyadan hana hadiyadaada mobilka smartphone-ka ku guuleystay waan mahadsantahay shirkaddu waxaan leeyahay jazakallahu khayran maashinta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Muna Ismaaciil Xasan waxaan ku guuleystay barnaamijka hadaha hadiyadaada waxaan halkan uga mahadnaqayaa shirkadda Telesom tayo waa Telesom bismillaahir rahmaanir rahiim horta ilaahay waa mahad iskale mar labaadkana shirkadda Telesom maadaama ay dhalinyarta iyo bulshada ay ku soo celinayso hadiyadaha iyo waxqabadka waxa kale oo adeega inoo fadhiisa waxa kamid ah internetka oo ka isticmaalno mobilada oo meel kasta aad ka heli karto xawaarihiisuna aad u sareeyo marka labaadna waxay naga caawisaa horta xagga sportska iyo waxyaabo badan oo aan la soo koobi karin tayo waa Telesom
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وثانيا إلهي سبحانه وتعالى يا قلدي ما هذا يسكناتي نصيب كي كدجي ما أنت هنا كوجليستو تلفن كا قعنتي ذا كسوجن إلهي باي محضر نسكناتي مرلباتك وحم هلا شركة تلسوم ومعاميش هذا أبا المرين برتنا وقبتي تلسومات بدل ما سنتهين إلهي سبحانه وتعالى ميزان كين حسنات كيدين سارو كلمة دي أنت تكسروا إن شاء الله تعالى. محمود سلوى يوسف حقا كسلام يا شركة تلسوم أو نكجا جولسنا برنامج كأقوال مال أدي أدنى نقول فرح سنة هاي النصيب كيجا سدا وجدوا حوالي ده عمبالي الله